hadda waxaa khadka si toos ah daawadayaal ugu jira gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan gudoomiye maanta maxaad ka wada hadasheen idinka iyo Soomaaliya أي سواليا حتى وحشر مدحوينون بوها يعني لكن أنا وحن راعي مدحوينات هيه أنا مدحوينها كغيب قلي هيه وحي أنه أيوتين وحوها إن هذا الذي يدير الله بلابه هيه هذا الذي يدير الله بلابه أيوتين هيه marka wixii hore ma idinaa fulina marka wixii hore lagu heshiiyay fulisaan ha afartii shire hore dhacay ee madaxweyne Siiraayo haye joogay haye marka fulisaan haye iyo tii ugu dambeysay madaxweyne Muuse sababa haye marka fulisaan haye marka suuba wada hadal iman kara haye laakiin wada hadal Soomaaliland iyo Soomaaliya iman kara haye la wixii ka soo baxda ballan qaadana hore haye safiirka ku fasiri wixii hore la ballan qaaday haye ila ka soo baxdaan wada hadal jirimay marka gudoomiye imka shacabkii Soomaaliyeed iyo kuwii Soomaaliland way ku dhageysanayaan shirkaasi wax natiijay kamay soo bixin miya wax natiijo maanta ka soo baxay ma jiro waan ahayn Soomaaliland waxay taagan tahay marka wixii hore la fuliyo markaas ay wada hadal ma jiraan wax guddi farsamo oo la magacaabay oo wada hadallada halka ka sii wadaya marka ay fuliyaan waxa kan wixii hore lagu heshiiyay markay fuliyaan markaasay furmi karaan laakiin hadda wax laga wada hadlayaa ma jiro wada hadalladan Mareykanka iyo Ethiopia ayaa goobjoog ka ahaa iyaga doorkoodu muxuu ahaa Mareykanka waxaan riixayay haye Mareykanka dawladda farmaajo iibinayay haye hada u dhiganaysaa tayda u dhigi maysidee haye waa kan doorashada gelaya haye marka Mareykanka ninkan gacan siinayay haye isaga wuxuu doonayay inay soo baxdo wada hadalladii dib u bilaabmeen Soomaaliland iyo Soomaaliya marka Mareykanku marka dooda lagu ninka la yiraahdo warkiga mooyee ninka la yiraahdo Abi Ahmed waa ku gacan siinayay marka Mareykanka iyo Ethiopia iyo farmaajo isku dhinac bay ahaayeen miya farmaajo madaxweyne farmaajo Ethiopia iyo Mareykanku ma isku dhinac bay ahaayeen Ethiopia iyo Mareykanku waxay yiidinayeen in haye la shiro laga wada hadlay kala hadli doona haye marka goorma ayaad soo baxaysaan shirki marka sidaas uu ku soo gabagaboobay sidaas goorma ayaad soo baxaysaan oo wadanka ku soo laabanaysaan shirki politicalka sidaas uu ku gabagaboobay anaguna haddaanu beri joogno dee saasna waana soo bixi alle marka ma jira doonaan miyaa gudoomiye kulamo dambe oo aad wada qaadanaysaan Soomaaliya intaad joogtaan Djibouti suuqa ayaa aad baad mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Salebaan Maxamuud Aadan oo khadka